markala wanaagsani dabciga isku dhaafay hablihii dalkeena diiraan ka doortay doogaygu raacay kulanti wacan daawadayaasha ku xiran janalkan Shabeellaha Tube ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa xaaladda caafimaad ee fanaanka Cumar Shooli oo aad ugu sii dareysa asigoo ku xanuunsan magaalada Muqdisho. Cumar Shooli waxa uu kamid ahaa kooxda Hobalada Waabari, waxa uu qaaday heeso badan oo aad u hirgalay kuwaas oo ilaa hadda shacabka Soomaaliyeed dhagtooda ka sii yeeraysa. fanaanka Cumar Shooli waxa uu lahaa naanees cajiiba taas oo ahayd madaalihii Hobalada Waabari, magacaas uu ku muteystay in uu kooxda Waabari iyo fanka Soomaaliyeed si xagar la'aan ah u garab istaagay. hadda waa qof xanuunsan oo yaala mid kamid ah isbitaalada Muqdisho, khaasatan isbitaalka Aadan Cadde. Cumar Shooli oo ka hadlay xaaladiisa caafimaad ayaa sheegay in ilaa hadda aysan jirin qof madax ah oo la kulantay fanaanka. والله دولة ما رادنا دولة ما رادن أنا إما صور رادن لكن واحد بدنا نشوفه. وقرتي بركة حنون كان مدة كهيا. مدة وف مرحلة لما كون من ما نأركن أيانا كل اسم أركن والله أيانا إما أركن أنا ما أركن لكن واحد ماشي يلا Soomaalida dibka u haysto waxa weeyaan qofna waa ay weyn ayaa la siiyaa qofna lama siiyo aniga kale dawlad ugu weyn madaxweynaha ugu weyn iyo prime ministerka ninkan prime ministerka isku xaafadanahay laakiin caruurtayda aad isu yaqaanin. dhanka kale caruurta uu dhalay alfanaan Cumar Shooli ayaa baaq u diray dawladda Soomaaliyeed ayagoo ka codsaday inay il naxariis leh ku soo eegaan aabahood. aabahay waxa ciyaalkiisa ahayn ma garab taagna maanta wadankan aad iyo aad ugu soo halgamay maantana wax dawlad ka socda aan arkayna ma leh. aaban jiriis aad u badatay haddana xaaladiisa waxaan ku sugannahay isbitaalka Aadan Cadde aan ku sugannahay haddana xaaladiisa waxaa laga deerinayaa dhinaca lugaha. waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliya oo ugu sareeya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish. waxaan leeyahay madaalihii Hobalada Waabari Cumar Shooli oo soo halgamay oo inta ku xanuunsan isbitaalka Aadan Cadde. waxaan madaxda ka codsanayaa inay soo kormeeraan maanta ay soo garab istaagaan. dumar kale macashaqin adalda ma kuma nuuraan doqaagu wuxuu rabo balindinba ku galo weligiiday kuma nuuraan. ma ahan Cumar Shooli oo kaliya fanaaniinta ku xanuunsan gudaha Muqdisho, waxaa jiro fanaaniin iyo abwaaniin ku xanuunsan magaalada Muqdisho sida fanaanka weyn ee Cabdi Tahliil Warsame oo asna ku xanuunsan gudaha magaalada Muqdisho. haddaba daawade fadlan u duceey fanaanka Cumar Shooli in uu Allah uu caafiyo. waad ku maasan tahay daawashada aad daawato muuqaalkan daawade. haddii ay tahay booqashadaadii koowaad ee aad janalkan soo booqato waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad janalka subscribe aad saarato furatana gambaleelka si ay ku soo gaaraan barnaamijyada aan halkan ku soo baahiyo. mahadsanid. wadnahaygi baadahayde kan dunida ka weheshanaaye dadku idilka daawanaaye daawaadi naftayahay samanta la wada wadaya oy sirta laga wada xumaada subaxdii bakeenaba su'aal baad igu wadaay samanta la wada wadaya oy sirta laga wada xumaada subaxdii bakeenaba
الباب هو الداعي